walaal waan idin salaamay salaan kadib waxaan doonayaa inaan sheeqa weydiiyo su'aal marar qaar waxaa dhacdo in salaada subax iga tagto markaas aan soo tooso 2 saac ama 3 saac kadib waqtigii salaada haddaba in aan waqtigaas soo tooso dukada oo salaadii qaleeyay mise marar qaar waxaa dhacdo in aan jiifkay iska sii wato oo markaan duhur wax yar ka dhiman yahay ama la jooga ayaan soo toosaa oo dukada diinta islaamku maxay ka qabtaa alxamdulillaah midna horta hurdaada ay kula tagto waqtigiina dhaafo wax dambi ma laha adigu laakiin wixii dadaaliya karaana inaad samayso saad salaada waqtigeeda ugu kacelahayd baa laga rabaa ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلي سفرها هنا حلي سقدح habeen damba seexdeen waa kii yiri war salaada noo ilaaliyo u dhihi jiray bilaal bayri aniga marka cid in la sameeyo ama saacad la buuxsado ama saad ugu kacelahayd aad soo diyaariso wax laga rabo way haday dhacdo inay hurdo kula dhaafto dambi ma laha qofka hurdo kula dhaaftay hadaa soo kacdo ama nus saac kadib ama saacad ama 2-3 kadib markaas ay waajib kugu tahay inaad kacdo tukato نبينا عليه الصلاة والسلام وكيل من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها مركع وحسستها تكذو لا كفارة لها إلا ذلك كفارة جدا إلا تكذا هين ماله إن هذا هردس كجر نقطات سي وضع طبع خلده تاسي ودنبي مركعت كعضو مركبة وين الصلاة هذا تكتها وبالله التوفيق